السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel ka daawanaysiin waa Leila Ahmed official. channelkayga taa ku cusub tahay subscribe, like, share, comment qurux badan ka soo bixi. maanta maxaan yahay sida title-ka ugu aragteenba title-ka maanta waxaan yahayaa arin qiiro leh oo xanuun leh oo dhibaatadeeda leedahay gabadha walaasheena maamadeena fanaanadeena boqorada ah oo Aamina Dhool ku xanuunsan wadanka Ingiriiska oo maanta isoo taabatay videogeeda markaa arkay oo aad iyo aad aan ugu danqaday ba isoo xanuujisay oo halkaan la soo fariistay videogeeda waa rabay inaan soo geliyo waxa u soo gali way videogeeda aan halkaan u keenay waxay tahay asxaabta sharafta leh oo igu xiran waxaan u soo gali way waxay tahay halkaan xanuun waan soo awoodi waa inaan soo geliyo aad baan u danqaday aad baan ugu xanuunsaday waxaan isir codkaada bal maanta dadka qof walba uu arkay saan jeclahay social media hadda waxa waa qof walba waagi hore markii la soo kaco Facebook lagu bilaabi jiray qoraacda Facebook hadda waxa markii la soo tooso oo camalkii lahaay la sameesto oo cibaadadii ilaahay naga rabay la sameeyo oo waxaan ku dhahay adduunka la qabto meel la fariisto telefoonka waxaa laga bilaabaya YouTube waxa la dhahayo sheekada YouTube ay ahayd oo Facebook ay ahaan jirtay hadda waa YouTube. marka asxaabta sharafta leh waxaan ii sheegayaa waa aragteen videogeeda inta badanaa inta arkina insha Allah waa arki doontiin anigana waa ka saadin iga soo gudbinayo maamadeena fanaanadeena waxaa jeclaa Soomaaliyeed inaa u kacdiin aad u boodiin aad inti karaankiina ah inti lacag ku saacideyso inti xoog ku saacideyso inti ku saacideyso ducada mar walba ducada muhiim ah waxay codsatay marwada horta videoga hala share gareeyo waxay codsatay madaxweynaha Soomaaliya xaaskiisa marwada inay maama Zeynab ay u saacido ay tiraahdo ay balantii hore ugu qaaday videoga asxaabe waa aragteen oo maleena asxaabta arkin ana hadda ni sheegay videoga oo ay leedahay balanta iga qaaday meesheedii taala wali maada ka soo bixin waxaan rabaa inaad wax ii qabatid silac ayaan u dhimanin lagu dhahay Soomaaliya warku waa nila soo koobay silac ayaan u dhimanin ma fahanti geeridu waa xaq laakiin silac ayaan u dhimanin sanadkii horeba safarkii horeba waxa wax u qabatay Soomaali fanaaniin farxi ka weerar Mareykan ay kasoo tagtay waxay imaaday wadanka Ingiriiska Mareykanka bacay qaatay reer Ingiriiska ayagana bacay qaateen war qaarad aan loogu halgamin ma jirto ilaa Jarmalka meel walba waxaan ku irsaasaan social media ugu arkay saasa bac loogu qaatay bacdii qaatay ayaa ka dhacday haddana waxaa la rabaa ducada inaad saas ugu shubtiin horta Ilaahay ha caafi fanaanadeena ilaahay inta islaam ummadana Maxamed xanuunsan ilaahay ha caafiyo waa la wada dhiban yahay dadka qaarkood way dhiban yihiin xanuuna iska jiro dhibaata iska jirto ummadda islaamka ummadana Maxamed islaam meel walba uu joogo meel walba qof walba uu joogo waxaan ka codsanayaa inay saacidaan maxaa la dhahaa isha ilaahayna caafiyo oo maxaa la dhahaa isha qof walba dhiban ilaahay caafiyo qof walba dhiban ilaahay caafiyo maamadeena horta ilaahay caafiyo hadeer oo xanuunsan waa xanuunkeeda maanta soo gubtay waxay leedahay intihaabaad ay hayo infection wax la dhahayo dhiiggeega laga helay maadaama laga helayna dee maxaa la dhahay meesha waxaa jirta umaleynaa xagga lacagta aniga waxay ila eg tahay xagga lacag adiga waraa keentay kowdhe murugaad nagu abuurtay lacagee dhibaataad noo keentay maanta lacag la suubinay wax kala suubin mala waayana waa yaabanahay wallahi haddaa maanta haysto aan awoodo waxay maanta ay u dhiban tahay sasaan ugu shubi lahaa wallahi oo bilaa taala haddaa awoodo maanta kama hakradan laakiin aawee ma awoodi laakiin waxaan awoodaa duca usoo duceynayaa ilaahay ha caafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf Allah ugu dhigo kuwii fanaaniinta hadda yaacayso fanaaniinta baa kala kasi waayay
hadda fanaan waaba laka suwaayaba fanaan waxaan ku dhahay qiimihii ka tagay fanaan waa la garan la'yahay fanaaninta saasay usoo yacaan fanaanow aamino ku tusaal qaado aamino markaa ku leeyahay ku tusaal qaado waxa waaye maamadeena fanaan orta xarago labis nolol waa ceesheedi laakiin maalintuu qofka jirdo maalintuu meel laga qabto meeqaa fanaaniino arkay oo silacday oo rafaaday oo shil ay leeyihiin meel soo istaaji waayo magac mooye lacag wala ma dhaxashiin hore loo sheegay ma fahanday intii fan ku jirto ilaahay waxaan ka baryayaa inay fanka ka tooba keenaan intii usii socotana allah ka soo qabto ma fahanday fanka wax fiican ma ahan fanka meel xun oo dadka dhigaa fankii hore oo waa hore aaba xoogaa roonaaya la dhihi jiray hadda laakiin waxaa lagu darsaday fankii dhibaato iyo dhib marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dadka fanka usii socdo ilaahay kasoo qabto ilaahay kasoo mudoobeeyo dadka ku jiraan inuu ilaahay ka mudoobeeyo waayo aamino dhool darajo ay ku keeni wayseen aamino darajo ay ku keeni wayse idinka ma ku keenaysiin waa kana aamino hadda xanuunsan tahay ilaahay ha caafiyo say waxu rabta ilaahay waxaa u siiyo marwadeena madaxweynaha soomaaliya marwadiisa ay soo hadashay ilaahay ha kasoo aamiinta hala soo guro asxaabee aniga maanta waxa waay hadalkayga la ii qabanin haddii iska dawa hadalka isku dardaray waxa waaye wallaahi calooshay aada iiga horisay waa arrin murugo leh waa arrin dhibaato leh waa arrin qof walbo markuu arko danqanayo waa hooyo soomaaliyeed waa fanaanadeeni waa boqoradeeni waxay ahayd majaajiliiste wallaahi maasha allah meeshii la istaajiyay majaajilo iyo fanba way kusoo bixaysay codkeeda maasha allah wuu kala baxsan yahay marka codka inkastoo laga soo gudbay hadda ay xanuunsan tahay waxaan ka wadaa markaan ku leeyahay codkaray ahayd fanaanaday ahayd qof walba wixii lagu yaqaanay uu lasoo istaagay shirka oo social media lasoo fariistay unbaa beri lasoo hadal qaadayaa waxaan iga codsanayaa asxaabta igu xiran inay usoo duceeyaan aamino dhool wixii taraankoodan ay ku taraan meeshay kala xiriiri karaan oo maxaan lahaa isheg hadday la xiriiri karaan ay la xiriiraan wixii ay u qaban karaanna ilaahay dartiisa inay ugu qabtaan soomaaliya ay meel walba aad joogtiin waxaan leeyahay isku tiirsanaada dadka fankaa lasoo hadlayaa fanow dadka fanka ku jiro waxaan leeyahay fanaaniine isku aduudsadoo meel isla tagoo wax un meel ku rita asagoo fanaan sanduuq ma lahaan jira miyana waa yaabay fanaan hadduu meel wax ugu jiri lahaa oo isfanaaninta isku xiran yihiin maanta dhibaatada maba la galeenba wax yarna maanta imayso ooyeen wax badan imayso ooyeen laakiin anaga waxaan ka dhalanay dad duntooda aad iyo aad iyo aad ay u macdahay oo aadna u fiican tahay waxaa ka dhalanay soomaali maanta oohinteeda meel qof walba ka danqatay qof walbana uu meeshuu joogo uu ku oynaayo anaga dadkaasaa ka dhalanay soomaaliyaan ka dhalanay oo meel walbo hadday joogaan gabar ay oyso ama waayeel ha noqoto ama ha yaraato ama gabadha had soo baxaysa ha noqoto haddayba oyso gabadheena anaga soomaali haddaana waxaan ku fiicannahay waa u wada istaagaynaa haddana waxaa jeclahay insha allah inaa wada istaagtiin u duceysiin social media waxaa loogu jiraa waxay tahay qofka fanka walaalkaa ku jiro dhibaateysan markaa dhibkiisa aragtid inaad kasoo hadashid qofka dhiban inaad kasoo hadashid wax fana qofku wuxuu micnaha qof walba wuxuu jecelyahay inuu soo geliyo aniga waxaa jeclahay leyl ahaanteeda markaa ka hadlo qof dhibkiisa markaa arko inaan kasoo hadlo oo wixii ra'yigayga aniga aan kasoo hadlo inaan video soo qaata ma jecli habigayga ma ahan inuu qof videogiisa aan soo qaato youtube-kayga aan soo geliyo ma jecli waxaa jeclahay wixii codkayga oo taraankayga aan ka hadli karo inaan ka hadlo waxaan ka arko ra'yigayga inaan ka sheego wixii oo maxaa lalahay sheegaan jeclahay oo isleeyahay qofka walaalkaa wuu ku fiirsan karaa wuu daawan karaa waxaa fiican iska hadal inaad u hadashid ma fiicna waxaa fiican inaad waxa aad waqti gelinaysid
oo soo gelinaysid social media oo walaalka aa leeda daawo inay noqdaan wax qurux badan ama hadal qurux badan oo maanta fiirsan karo indhaha u roon inaad soo gelisid insha allah. maanta waxaan meeshaan aan duca ugu dirayaa oon dadka fanaaniintana aan ka waaninaya u sheegaya oon leeyahay fanaaniiney hala kaco, soomaali ummadda nabi maxamed hala kaco, madaxweynaheena istaag, meel walba dadka joogaan oo soomaali ummadda nabi maxamed inay istaagaan aan jeclahay. waxa isoo fariisay halkaan xanuunka soo fariisay wuxuu yahay aamina dhool aan ka hadlay. waxaa faantamlena hadalkeyga waxaa jeclahay inuu ku galay asxaabta sharafta leh. hadalka haddaan igu dheereeyay ka raali noqdo, hadal badan haama buuxshaa lidi kowdhaha. ducada hala soo badiyo, ducada hala soo badiyo. anigana insha allah wax walba aad jeclahay ama wax walba idinka aad jeceshihiin commenti igu soo qora. wax walba aad jeclahay isdhahna dadkaada waa la wadaagi kartaa. halkaana la soo fadhiyaa waan ii soo gelinayaa insha allah. channelkayga waxaan jeclay inaad ii share garaysid, subscribe-ta ay igu dadaashiin. please subscribe ii saara, ii share gareeya, like-ta igu dadaala, comment qurux badan iiga soo bixiya sida anigan aan wax walba aad jeceshiin aan usoo geliyo insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.